anagoo ah hooyooyinkii awdal waxaan ka cabanaynaa xukuumadda inta macna ka hooseysa xukuumadda ma wada qabta eeda ma wada eedayn karo ninbaa wanaagsan oo ku dhex jirta inbaa macna si fiican wax u xukumayso oo macna xukunkooga iyo maamulkooguba aad u fiican yahay haddana inbaa intaa ku hoos laaban marka madaxweyne biixi waxaan ka codsanaynaa muuse cabdi waxaan ka codsanaynaa in naxariista nagu soo eego awlaadda sida ugu degdega badan la noogu soo saaro inbaa iskool la dhiganaysa inbaa jaamacada ku jirta inbaa dugsi dhexe ah inbaa maaragtay noo shaqayso bijaasho wata waxa ku jiro kale inama kolayga ku joogay oo qayilaya oo labana la sii daayay labana lagu reebay wax loogu reebay sababta loogu reebayna aan wali garan karin ana macna noo sheegin awlaadda meesha ku jirta waxay u badan yihiin dad yarawa waxa lagu reebay saldhigga maxkamadda lagu reebay afarna waa la sii daayay labana waa lagu reebay wax kala sooca wali ma hayno laakiin dawladda waxaan ka codsanaynaa awlaadda naxariis la noogu eegaan oo ma aragtay awlaadda noo kala soocaan oo kii xaqana ay saaraan kii aan eed lahayna ay sidiisa u soo daayaan ma awoodi karo xataa waxaan awoodi karin ka dulmiga maanta macna sameeyay ee maaragtay darada sameeyay ayaaban awoodi karno maanta xabad baa lagu korniyay xabad basala oo hooyadii xoogsanaysa oo dhibaataysan tahay magaalada Boorama shaqo kama socoto dhawaab la og yahay dhalinyarta magaalada Boorama joogta dirqi baan ku haynaa awlaadaas oo maanta waxaan ku cijinaynaa dismoral magaalada macna wax awood oo ka socota ma jirto wax mashruuc oo ka socda ma jiro haddana inta waanu ceeb qarsanayna waanu haysanaa awlaadda iyadoo maamulka waxaan u dhisaynaa dismoralka waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne Muuse Biixi inuu il naxariista awlaadda si degdega noogu eego waan dulmanahay annaga lacag aan bixin karin oo $22,000 lagu soo dalacday oo haddana kiiskii dawladda gooni noo yahay marka madaxweyne Muuse Cabdi Biixi waxaan ka codsanaynaa annaga shalay dadka waxaan nahay kulmiye taageeray oo codka ugu fiican siiyanahay marka mudane madaxweyne asxaan noo samee caruur qaar waa agoon qaar waa yatiin haddana waa taageersanahay dawladdeena mucaaradna ma nihin ha guulaysato muxuu ahaa kulmiye waxaan ka codsanaynaa mudane sida ugu dhaqsiyaha badan in caruurtaas xalna looga gaaro caruurta way kala duwan yihiin qaar ayagoo 32 oo 5 cisho xiran ba fawda dhacday ma garatay dad fawda oo caruurtan ka waaweyn oo dhiman inta laga dukaamada saqadii dhexe u jabiyay alaabihii gubay xaafadihii gubay xilli in yara koriya uu soo jeedi kara ma ahayn labadii habeenimo bay ahayd dhibanihi baa lacagti lagu qoray muraayadaha la jabiyay baawur baa la jabiyay qasaar inta laga dhacday shalay caruurta markii maxkamadda la keenay anaga waan ishiidnay laakiin wax muraayada iyo wax dukaamaha oo aan bilqasna ma jirto khalad uu dhacaa caruurta tay doonta baata khalad baa ka dhacay khaladkii haddii uu dhacay waxaanu doonaynaa in aan la isku xaabaynin caruuraha in baa dhexda laga sii daayay in baa magacdoodii baa laga waayay la yidhi oo la sii daayay hoostaa loo wada maray intii masaakiintii ee aan waxba haysan iyaa meesha ku jirta aan dhibna geysan raggii dhibta geystay ama maxkamaday ka baxsadeen ama marka horeba lama soo qaban caruurta yaryar ee 15 jirka ee 13 jirka ee 12 jirka ay jeelasha nagaga hayaan ha noo soo daayaan wixii ay galeen ha nagu cadeeyaan waxaanu doonaynaa dambi cadayn leh oo degdega oo qiimo leh oo loo qushuuco oo ilaahay lagaga cabsado dar ilaahay lagaga cabsado dadka laakiin dulmiga sameeyay ee iska qayilaya ee ubadkayaga ku qaraabanaya raali kama ihin caruurtayadu waa caruur yaryar dad baa falkan galay dadkiina way baxsadeen intii ugu dambaysay waxa laga sii daayay ka baxsadeen shalay maxkamadda annaga kuwa yagii oo yaryar oo baxsan karayn baa la haystaa ma doonayna in dambi nin kala galay ubadkayaga lagu hayo lagu xaabeeyo 4 bilood oo dhow bay xidhan yihiin lacagna ma bixin karno ama hay'adaha naga bixiyaan ama dawladii ha naga bixiso annaga caruurtayadii maxkamadda la noo soo taaga sida u dhaqsiyaha badan leh hana loo keeno hala nala hadlo waxay sameeyeen iyo dhibanayowgu dhaar kitaab ilaahay oo 30 jis ah iyaan ku qancayna ha noo maraan ubadkayaga hala noo keeno ku tiri ku teena waxba kuma bixin karno 4 bilood oo dhowdhow bay wadkaygu xidhan yihiin ma qaadi karna intaa in ka badan xabuub baan iibinaa basal baan iibinaa dhuxul baan iibinaa ma awoodi karna anagu lacagta intaa leh haddayna dawladii xaq ahayd aanu shalay dooranay maantana diyaar u nahay haddayna intaa noo awoodi karayn ha noo sheegaan meelo badan oo la maraa jirtay annaga hooyooyin dhibana caruur yarar baa naga xidhan da yaryar 14 jiraa 15 jiraa waxba geysan meesha ku dulman oo ku xidhan 3 bilood bay xidhan yihiin dadkii wax sameeyna way maqan yihiin cidima hayso annagu waxaan doonaynaa cadaalad inuu badka cadaalad noo keeno la noo soo daayo
wixii qalad ah nagu haysan lagu soo cadayaan doono si degdeg ubad kale nagu soo wadaxay ubad yar yar wax barta waxbarasho ku jira mustaqbal leh ubadka mustaqbalku ka baabay waxbarashada way saagaan carruurta waxaan si degdeg ah nagu soo dayaan doonayna dhalinyarta maanta ku xidhan jeelka waxa ku xidhan dulmiga waxa jira dad shaqaysanayay oo xaafadooda biilinayay haddana maanta ku xidhan dulmi la'aan oo dambi ku jira dadka dambiga ku jirna banaanada ku xidhan marka dawladdu waxaan ka codsanay sida degdeg leh ay u kala saaraan oo xaq u eegaan kii dambiga la'aan la dul saaro kii kalena la iska soo daayo inankayga oo 24 jira aan falkaana horena u gelin dibna aan u gelaynin oo shaqaale ah oo bariiska ii ridayay oo maxay hayday isagoo daqiiqdii xashtay koob iyo tobankii habeenimo ayuu daqiiqdii xashtay waa saambuusle koob iyo tobankii buu xashtay labadii iyo barkii habeenimona isagoo hurdaa laga qaaday hurdada waxaan salaamayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaal waxaan ka cabanaynaa ubadka iyagoo kolayga fadhiya laga qaaday ee dambi ayna lahayn lagu qaaday ee intii dambiga gashay falka gashana walaalow ay baxsatay waxaan ilaahay maxaan walaalahay ka codsanaynaa oo Muuse Biixi ka codsanaynaa inuu si sharaf leh oo mahadsan inuu noogu soo daayo oo codsiga iyaga naga qaado oo naga aqbalo madaxweyne Muuse Biixi waxaan ka codsanaynaa awlaada yaryar ee dulmiga ku xidhan ee yaryar ee ciyaalka ee 14 jirada ee 15 jirada ee hooyahan laxoo ku korinay ee cusbo ku korinay ee dhuxul ku korinay ee basal xab suuq la wareegayno ee noo shaqaynaysay ee kaariyooraha inaan u dhiibayno in iskoolada dhiganaysa ee hooyahan ahayn korinay waxaan madaxweyne ka codsanaynaa awlaada yaryar inaad noo soo dayso lacaga lagu sheeganaya lacagana awood uma hayno waxna awoodi karo ma ahin lacagta la sheeganayana 20 kun bala sheegan ma awoodi karo awlaad la masabidaya cadaalad ma ahin kii wax geystay dhibta geystay meesha uu ka tagay kii aqlay jijibiya iyo kii tukaan boobina maba jooga dhulka waciyaar yar oo iyaga ma bajaash wada ama iskool tagayo iskool jooga dhulka laga qabsaday weeyaan walaal Muuse Biixi waxaan ka codsanaynaa inaad masaakiin baan nahay dhuxul baan iibinaa milix baan iibinaa iskariin baan tuka iskoolada geynaa waxa leexanaysanaa ma jirto aqooma naga buuxa dhalliyahan karsanay baa dafa waxaan aabba ka codsanaynaa anoo ku taageersan imikana ku diyaara waxaan ka codsanaynaa inaad awlaada had waajibkooda ka mata awlaada meesha nooga soo dayso awlaadu waxay ruweeyaan wax saasi ooyaan saasixiinaha looga soo kii askarka soo hashuleeyay waxa uu leeyahay shaarka wax jeel arkay wali maahin wax wali meesha lagu xidho ma bisaas mardilaacsiin annaguna sidaasana xabadii shalay baan ku yimid kooma gal iyaguna naga daran yihiin waxaan ka codsanaa wixii dhibta geystay falka geystay ma joogo mana xidhno cadaalada la noo hor keeno waajibkooda ha laga marakii dhibta geystay ciyaalka yareesay soo koraya ee u bixii magaalada ee u bixii wadanka u dhashay ee berina dhaxli doona in la gubaysto maahin dadku waa walaalo waa awlaadeeni waa wixii dhasheen waa wixii la dhalanay waxaan nigu codsan madaxweynaha sharafta loo ka codsan anagu cid kale ma garanayno adiga iyo Allah adaa maanta Allah baan garanay ilaahay baa waxba saqira waxaan se doonaynaa walaal aabba Muuse inaad awlaada ilgaar noogu eegto inaad awlaada ilgaar noogu soo dayso inaad awlaada yaryar ee wada babanaysa cuntadii naga cuni weeda waa mardilacsamagan oo ku darayno hooyo dhiban oo ooyaysa waxaan ka codsan naxariista noogu eegto iyana aabba ka codsanaynaa adaa noo aabba Allah baan haysanaa saadan noo saraaco noo aabba waxaan ka codsanaynaa awlaada yaryar ee iskoolada dhiganaysa ee mardilaacsan inay waashaan baan ka baqaynaa markaan u galnaa jimciyaan aragno nama garanayaan indhahana la dhaafinaya inay inama xiiska waashaan baan ka baqaynaa aabba waxaan ka codsanaynaa awlaada ilgaar noogu eegto